Assalaamu calaykum akhyaarta. Maanta waxaanu ka hadlaynaa sidee ayaad ganacsi u bilowdaa oo aad ganacsiga u maamushaa. Run ahaantii su'aalahaas ma isweydiisay weli. Haddii aad ganacsi aad bilaabayso ama aad rabtid inaad ganacsi aad bilowdo, run ahaantii way yar tahay inaad isweydiisaan Soomaalida ganacsatada inay su'aalahan isweydiiyaan sidee ayaad ganacsi u bilowdaa ama aad u maamushaa. Waxyaabo badan oo waxaa jira aas u ah bilowga ganacsiga. Run ahaantii ganacsatada caalamka oo dhan waxay isticmaalaan xeelado aad u fara badan ama istiraatiijiyo aad u fara badan marka ay bilaabayaan ganacsi. Run ahaantii Soomaalida laakiin way yar tahay inta isticmaasha boqolkiiba waxaa la oran karaa waa 20, inta kale ma isticmaalaan xeeladaha noocan oo kale ah. Run ahaantii Soomaalidu waa dad ganacsiga aad u yaqaana oo ganacsiga aad ugu fiican oo waxa kaliya ay ku fiican yihiin ganacsiga, laakiin ma isticmaalaan xeeladaha mataqaanaa professionka. Lambarka koowaad, samee cilmi baaris suuqeed si aad u hesho ganacsigaaga ganacsi kugu habboon ama wax kugu habboon aad ka ganacsan karto. Haddii aad ganacsigaaga aadan cilmi baaris ku samayn oo aad ganacsigaaga meel uusan ku habboonayn aad ka furtid, run ahaantii ganacsigaaga wuxuu noqonayaa mid fashil ah ama fashilmi doona mustaqbalka. Haddii aad ganacsigaaga aad ka furto meel waxa aad iibin doonto ama aad gadi doonto oo dhan lagu hayo ama lagu iibinayo, ama dadka mataqaanaa meesha jooga aysan baahi u hayn, run ahaantii ganacsigaagu ma noqonayo mid hore u soconaya. Waxaa laga maarmaan ah inaad cilmi baaris samayso, aad fiiriso meesha ay fursad fiican ay taallo. Lambarka labaad, qor qorshahaaga ganacsi. Waa inaad leedahay qorshe ganacsi oo kuu qoran oo kuu degsan aad horay uga baaraandegtay. Haddii aadan qorshe ganacsi aan lahayn oo waxaagu yihiin mataqaanaa fur oo horay ka daldalo, run ahaantii wax mataqaanaa suurtagal ah maaha. Lambarka saddexaad, maalgeli ganacsigaaga oo investment ku samee. Waa laga maarmaan inaad ganacsigaaga maalgeliso oo aad investment ku samayso. Marba haddii aad ganacsi bilaabayso waa khasab ganacsigaaga waad maalgelinaysaa. Lambarka afraad, dooro goobtaada ganacsi. Waa inaad doorataa goob ganacsi oo adiga aad leedahay ama mataqaanaa ganacsigaaga ku habboon. Haddii ganacsigaaga goob aan ku habboonayn aad ka furtid, ganacsigaagu mid shaqaynaya ma aha ama mid hore u soconaya ma aha, faa'iidadiisuna way yaraan doontaa. Lambarka shanaad, dooro noocaaga ganacsi ama ganacsigaaga nooca uu noqon doono. Waxaa laga maarmaan ah inaad ganacsigaaga aad noocu noqon doono inaad doorato. Haddii aadan dooran noocaaga ganacsi ama ganacsigaaga nooc uu noqon doono, horeyna aad u qorsheyn ganacsigaaga nooca uu noqon doono, run ahaantii isma keenayso. Waxaa laga maarmaan ah inaad ganacsigaaga goobtiisa nooca uu noqon doono waxaasoo dhan aad horey usoo qorshaysay oo aad cilmi baaris usoo samaysay. Lambarka lixaad, diiwaangeli ganacsigaaga oo ganacsigaaga ha noqdo mid sharciyeysan oo aqoonsi ganacsiyeed haysta. Haddii ganacsigaaga aad aqoonsi u samayn ama aad diiwaangelin, run ahaantii adigoo ganacsigaaga ku kala socdo ayaa lagu imaanayaa kadibna waa laga xiri doonaa. Marka ganacsigaaga waa inaad aqoonsi u samaysaa. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Waxaan filayaa inaad wax badan aad ka faa'iiday muuqaalkan. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, subscribe noo saar. Mahadsanid.